Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa jira mowduucyo badan oo laga soo qoray internetka kuwaasoo ku saabsan dadka adduunka ugu saameynta badan. Sidaas daraaddeed waxaan helay buuggan oo ka hadlayo 10 qof ee ugu caansan adduunkana bedelay ama taariikhda. Shakina kuma jiro weynaantooda. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkani waa mid aan cadaalad ku ahayn dad badan. Laga yaabee inaysan caan noqon, laakiin xaddiga isbeddelka ay horseedeen ma yara. Waxaa laga yaabaa inay keliya ka maqnaayeen ilayska warbaahinta. Waxaan dib u eegaynaa shakhsiyaadka ugu caansan adduunka, waxaana ku bilaabaynaa kuwii ugu yeeray dadka isbeddel weyn waqti hore. Maxamed bin Cabdillaahi, rasuulkii sharafta badnaa, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ee yimid iyadoo dadkii ay ku sugnaayeen baadi iyo jahli. Sidaas daraaddeeda dadkiina wuxuu ku hanuuniyey waddada nuurka iyo hanuunka. Dadkuna way kaxeeyeen, way dhagaxeeyeen, qashin ayay ku tuureen, way caayeen, asxaabtiisina way la dirireen, noloshiisana way kashifeen intii karaankooda ah. Laakiin wuxuu sii waday dacwada, wuxuuna adeegsaday xeelado badan. Wuxuu ahaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, hogaamiye siyaasadeed oo heerka koowaad ah. Kii dowladdii Islaamka ka aas-aasay Madiina, wuxuu dhisay ciidan xoog leh, wuxuuna qabsaday hal duulaan midba midka kale. Wuxuu kaloo ahaa hogaamiye military, wuxuuna ahaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee mid sameeyo dib u habeyn bulsho iyo mid amaanan maamulka qoyskiisa iyo dadkiisa, sidoo kale deriskiisa iyo asxaabtiisa, dhammaantooda Allaha ka raali noqdee. Wuxuu ahaa kii dhigay mabaadi'da aadanaha ee maanta ka hadlaya xuquuqul insaanka iyo jaceylka. Qofna ma soo mari doono adduunka, raadna kuma soo yeelan doono adduunka sidii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo kale. Salaaxuddiin al-Ayyuubi waa Salaaxuddiin Yuusuf ibnu Ayyuub ibnu Shaazi ibnu Marwaan Abu al-Muzaffar al-Ayyuub oo dhashay 1138 sidoo kalena dhintay 1198. Ka hor intuusan hogaamin militarigii Islaamka, wuxuu aas-aasay saldhig adag intuusan sameynin qabsashadiisa. Salaaxuddiin wuxuu ahaa boqor aan cabsi iyo eed lahayn. Wuxuu baray kuwa ka soo horjeeda fardafuuliska. Runtuna waa tan boqorkii Jarmalka ahaa ee isaga ka yiray. George Washington, madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykan ah eena ka soo jeeday dhulka, wuxuu dhashay 1731 wuxuuna dhintay 1799. Noloshiisana waxay ku bilaabatay jawi beereed oo dhexdhexaad ah. Wuxuu helay waxbarasho aad u yar, wuxuuna u biiray ciidanka, wuxuuna lahaa magac aad u weyn. Waxaa loo magacaabay ammaanduuliyaha ciidamada qaaradaha ee dagaalkii gacaanka Mareykanka. Wuxuu ahaa mid aad u qiirooday oo door weyn ka qaatay kor u qaadidda niyadda ciidanka dhammaan dagaaladii uu hogaamiyey. Wuxuu lahaa istiraatiijiyad waaweyn iyo himilooyin waaweyn oo ku aadan aas-aaska jamhuuriyadda, isagoo adeegsanayo awoodda federaalka. Wuxuuna galay dhowr dagaalo Ingiriisa sida dagaalkii Bristol, dagaaladii kale. Wuxuuna khibrad u lahaa nolosha bulshada oo door weyn ku leh qaabeynta dastuurka Mareykanka. Wuxuuna raacay waddada siyaasadda ilaa laga doortay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykanka ah 2 xilli. Doorasho laga bilaabo 20 Abriil 1789 iyo 3 Maaj 1797. Wuuna diiday muddo kordhin loo sameynayay markii saddexaad. Gandhi
hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Hindida ahaa oo diiday xaqiiqda gumaysiga iyo gumaadka ka jiray dalkiisa. Sidaas daraaddeeda wuxuu ahaa mid caqli badan oo adag. Markuu rabo inuu hirgeliyo wuxuu doonayo, wuxuu ka bilaabi jiray naftiisa oo isagaa bilaabi jiray isbeddelka. Taasina waxaa xaqiijinayo maradiisii caddeed ee isaga markii ugu horeysay xirtay, kadibna raacdadiisii xirteen. Intaas kadibna waxay astaan u noqotay Hindiga.